شر عن هو ولا هلينا أما هتصور دول شيء خبر قبل وهي عن تصور سارني أو عن سارني وحافظ اللون سين شامل إن شاء الله بسيط كل اللون بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية الفدرالية الصومالية سنة 3 كسو جيدة دولة الكونفدرالية بيت صوماليا ورمتير 15 أكتوبر 2022 سنة 3 دولة الفدرالية الصومالية كما ترى دولة الصومالية الكونفدرالية أيضا تحقيرنا حالتها أمني سياسات وشيء تقارب ولما بدوسوا السعودية كذي وحارسوا صارين خطبة صوصة كو تأسي إنا لله وإنا إليه راجعون سنة 3 waxaa kala sitiraayeen u dirayaan dhammaan dadkii ku biirsan qaraxyadii 13 Oktoobar 2022 ka dhacay magaalada Baydhabo waxa ayna u rajeynayaan inta ku dhaawacantay in Ilaahay si degdeg ah u bogsiyo waxayna xukuumadda federaalka Soomaaliya u baaqayaan in gargaar filan oo degdeg ah la gaarsiiyo dadka dhibaatada soo gaaray labo amniga ayadoo dowlad goboleedka koonfurta Soomaaliya ay isu diyaarinayso doorasho madaxweyne ayaa sanadada waxa ay ugu baaqayaan dhammaan shacabka musharaxiinta iyo hay'adaha amniga waa inay ilaaliyaan xil gaar ah iska saaraan amniga guud ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Axmed ee Baydhabo waxa aan si gaar ah uga digaynaa musharaxiinta oo dhan in aanay ayaga iyo taageerayaashooda ku kicin wax degdeg ku ah amniga iyo deganaanshaha guud ee deegaanada saddex doorashada guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo waajib gaar ah ka saaran yahay doorashada madaxweynaha waxaan kula dardaarmaynaa inay ku gutaan waajibaadkooda sida dastuuriga koonfur galbeed uu qabo iyo inay guud ahaan doorashada u maamulaan si daahfuran isla markaana hormuud ka noqdaan doorasho si xalaal ah u dhacdo waxaan si gaar ah ugu baaqaynaa in la dedejiyo magacaabista guddiga doorashada laguna qabto doorashada waqtigii loogu talagalay afar faragelinta doorashada senatarada waxa ay ka digayaan cid kasta oo isku dayda inay faragelin ku samayso doorashada koonfur galbeed waana in dadka koonfur galbeed loo daayaa in ay doortaan cidda masiirkooda ay ku aaminayaan gabagabadii iyo gunaanadkii waxa ay senatarada ugu baaqayaan shacabka koonfur galbeed inay ilaashadaan midnimadooda nabadooda iyo xasiloonida deegaanadooda iskana ilaaliyaan in ayaga loo adeegsado burburinta xasiloonida deegaanadooda wabillahi tawfiiq